magacay waa Farxan Xasan ka soo jeeda beesha Daarood gaar ahaan beesha Dhulbaande gaar ahaan beesha Axmed Garaad waxaan ku xidhanahay jeelka weyn ee Hargeysa halkaas oo muddo 9 sanadood aan ku xidhanahay muddada 9 sanadood waxaan ku xidhanahay mag 9 sanadood beesheeda waan la hadlayay Axmed Garaad magtaana inay iga bixiyaan waan ka waayay oo iga bixin waayeen sidaa darteed markaan 9 sano oo kamid ah cumrigeyga aan ku dhameystay jeelka waxaan go'aansaday inaan fariinteyda gaarsiiyo dhammaan beelweynta Daarood meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba madaxdooda iyo maxaan ku raahdaa mudanayaashoodaba sidaa darteed waxaan ka codsanayaa beesha Daarood cid kasta hadalkayga gaaro oo kamid ah inay ii soo gurmadaan magtaana iga bixiyaan waxaan ahay aabe 4 caruur leh qayb kamid ah caruurtooda waxay dhasheen intaan jeelka ku jiray mana aan nasiibna uma helin inaanu is aragno oo midowno nasiib ma helin sidaa darteed mudane iyo marwaba beesha beelweynta Daarood waxaan ka codsanayaa inay magta iga soo bixiyaan si gaarana waxa weeye waxaan leeyahay mudane iyo marwaba waxaan la hadlayaa magaca Daarood muddo badan in xidhan baan oo mooralkii jabay manfac ma laha aakhiro dad yahow magaca reereeda maanta aan idin baahanahay mudanayaalow madoobiyo kale dani ku tahay waa mactuurahay مصطفى وفرماجان أدري مصنع وهذا له أيضا إني سلامية ما دام عن سبب بلغة إني كسر عطلي يدوك بلوين تدارا وحادو يرأو مقع وحنين كرهتين إن ماشي وعابين ببلغة سليقة لقيستي مقتانا سيدك دقيقة صوب عسان وبالله التوفيق نمبرك وحلي يوسف أغاتين يا حويا إن قرابنا هاي عبد الرشيد حاج السمات العلوشوب نمبر كيسونية هاي لبا الشن لبا لح سجال هل أفرتني كو والله بالشن لبا لح صدح